waxa lagu soo qaaday weer iyo dhul oo naba caadahay in yar waxa uu jira in xaruntoodii la jajabiyo oo la galo ayaa in yar u jireen cirka dhulka ayaa la gariiday ayaan oran karnaa sababta saawlay waxa weeyaan cid kasta way garaacaysaa ma astaan TV ba ma oromaatiin ma astaan TV ba rasiifkiina soo doonta hatta sida halkan idinka muuqata waxa arkaysan rasiifka astaan TV oo la jajabinayo oo waxaan ku qowda lagu hayo oo waxaan ku inta la qaato buriyo iyo tib dumarka la dhacayaan ma garanaysaa ee xitaanka aragtaa waxaan doonayaa balabada saddex kamid ah inaan wada dhageysano oo wada daawano sida loola hadlayo horteena Mariya وعليكم السلام استمع استم تي في قلد وينك الشين محان نجيب الدشين مانته الله عليكم ورحمة الله وبركاته سوري ودا صاحبيال ملك سودون دافيدك جوجتان markii ugu horeysay soo martay waxaan ka codsanay daawada muuqaalkan aad galaysid barteena Facebook Cabdirsaam Maxamed soo biirtay barteena YouTube awrashada naga daawanaysid inaad soo follow gareyso ama soo subscribe gareyso waxaana noo tahay muhiim aad wax badan in ka dhibayn ayaan rajaynayaa waxaan doonayaa saaxiibayaal Astaan TV oo maalmahan dabka saarnaa dabka waxa dabku saaray ma maqashay dabka saarnaa ayaan doonayaa saaxiibayaal inaan wada dul istaagno oo magaran saay ka wada faaloonay ee bal soo dhawaad horta ugu horeyntii muuqaalka la garay barteena Facebook Cabdirsaam Maxamed san horada ku sheegay ha hilmaamina inaad la garaysaan meel fog ay gaari doonaan waayahay haddaanu nahay dhalinyarta Soomaaliyeed baraha bulshada ku bahawday ama bahwadaagta ku ah waxaanu ka madax banaanay qabyaaladii iyo qurunka iyo eriskii iyo xoyntan ka madax banaanay telefishinka Astaan TV tan iyo maalintii magaran saa oo arintii falka xumaayay in Sheekh Cabdiqaadir uu geystay waxa lagu soo qaaday weer iyo dhul oo naba caadahay in yar waxa uu jira in xaruntoodii la jajabiyo oo la galo ayaa in yar u jireen cirka dhulka ayaa la gariiday ayaan oran karnaa sababta saawlay waxa weeyaan cid kasta way garaacaysaa ma astaan TV ba ma oromaatiin ma astaan TV ba rasiifkiina soo doonta hatta sida halkan idinka muuqata waxa arkaysan rasiifka Astaan TV oo la jajabinayo oo waxaan ku qowda lagu hayo oo waxaan ku inta la qaato buriyo iyo tib dumarka la dhacayaan ma garanaysaa ee xitaanka aragtaa waxaan doonayaa balabada saddex kamid ah inaan wada dhageysano oo wada daawano sida loola hadlayo وعليكم السلام استمع استم تي في قلد وينك الشين محان نجيب الدشين مانته واحد دشين استان واحد دشين ويلكي دماي oo nii shaqeynaayo oo shaqada ugu firfircoonay biris wax wixii ka bilaabo TV-gi naga soo doonta wacaar هلو استمع استمع والله الإثيوبيان ماتين بدأ أو صومالي نين وهي لا سعي شغل وصارتين waayahay saaxiibayaal wada daawada muuqaalada kala duwan ee Astaan TV oo la garaacayo leeyahay Astaan TV baatiin wax kale idin kaga baahnay rasiifkiina iga soo doonta yaa waxa meesha ka socda oo aan naba caadahayn iyo aaladii TikTok oo weerar cir iyo dhul ku qaaday Astaan TV dhalinyarada ku jirtay wada aragteen saaxiibayaal hadda waxaan doonayaa inaan mid iyo laba ku darsado horta Astaan TV inta ka warhayo waa telefishin ka madax banaan arrimaha siyaasadda waa TV ka madax banaan arrimaha magaran saayayadu adu caynkaas laakiin hal baan ku darayaa Astaan TV ama Hargeysa ha ahaado ama magaran saayay Muqdisho ha ahaado halka shaqeeyaba waxa jira dad si gooni ay kooto ugu xiranta Astaan TV marka loo eego oo dadka say doonaan ku sameeyaan Hargeysa oo joogno oo ku sugannahay waxa dhacda mararka qaar ciyaartooyda abaalmarinta ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland ay siinayso in Astaan TV laga tashado qaar kamid ah ka shaqeeya been sheegi maayo halka xitaa awalba xagga daba fadhiya oo walaalkii maar ku jira in dhalinyarada sportska ku jirta qaar kood lagu cunsuray xitaa Hargeysa dhexdeeda qaar abaalmarinta qaar kale laga siiyo iyaga laga tashado ayaa Hargeysa xitaa ka dhacda Muqdisho kaliya ma aha marka Astaan TV marka laga yimaado xagga siyaasad ahaan marka laga yimaado waxa jira dad tan intii la asaasay jooga oo kooxda daysto oo iyagu waxay doonaan go'aamiya marka TV-gu badana telefishinadu waa iska caynka anigu warbaahinta xoogay baan ku soo dhex jiray markaad warbaahin tagayso waa in interest guriga laga yeeshaa ama inuu qof ku wada hablaho kale tusaale waxaan leeyahay hablaayay maxaad uga shaqaan ku shaqaalaysiinana wallahi ana been sheegay TV imka kacay oo Soomaaliland kamida oo jira ayaa hablo markay warbaahin soo bartaan waxa lagu oran jiray oo magaranaysa taas ku dhici jirtay imka laakiin qofka si ilaahay wuxuu fududeeyo social media ayaa jira waana wax ay caan ku noqdeen warbaahintu siiba ahaan dadka aan muuqanin
dadkaan muuqanay markaan leeyahay waxaan ka wadaa wariyaha iyo kabarmaanka iyo waxaas ma aha waxaan jira dad xagga dambe daahdabiisa warbaahinta fadhiya oo la yiraahdo ma garanaysaa tafadire oo la yiraahdo ma garanaysaa agaasimi oo la yiraahdo gudoomiye iyo mulkiile afartaan nin waxay go'aamiyaan TV-da ka socda badanaa qofkay doonaan in meel gaarsiiyaan way gaarsiiyaan oo kan muuqanaya ayaa laga soo garab saaraa haddaba TV-da Soomaalida oo dhan horta arrintan way ka dhacdaa balse laakiin ilaahay dadku wuxuu ku soo kala furtay social media qofka YouTube yar ama Facebook yar iska sameystaa halkiisa wixii ilaahay balaaqa gali ku soo bandhiga cidna inaan u baahanin baan ogahay war way fahanteen Soomaha laakiin maanta qof u baahataa waa maanta aad go'do astaan TV-na dhulka Soomaalida oo dhan marka laga yimaado xagga siyaasadda waa ku amaanaya laakiin xagga siyaasadda iyada u taala waa meel dadku u xiran badanaa astaan TV waxa dareemaysaa qoqobnaan badan ka jirto astaan TV waxyaabo badan caynkaas ayaa jira war way fahanteen Soomaha wiilka dhalinyarada xaqiisa in loo soo dhicin oo ku faraxsana warbaahinta dhammaan hadii bir hore social media jiri lahaa dad badan xaqooda wallahi inaan aasnaadeen war way fahanteen Soomaha marka balad ku dareenkii aragtiina sidii la muuqato commentiga nagu la wadaaga saaxiibayaal oo ma garanaysan caadi fadisnayn balad ku commentiga soo bixiya sidii la muuqato ninka dhalinyarada ee ma garanaysan xaqiisa loo soo riday iyo washamsa lagu qaada Astaan TV-na aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba sababta lagu faraxsanahay waxa weeye in qof xaqiisa la xaqiro ee ma garanaysan xaq maaha anigu siyaasad kama hadlayo Najib Cabdiqaadir bad buu ka hadlay waxaas ku hadlay shaqadeeda maaha laakiin uu shakhsigaas ka hadlaya kaliya anu bad iyo siyaasad iyo ee ma garanaysan xayawaankaas uma gelin arrinkaas war way fahanteen Soomaha balad kuna si sheer garay muuqaalka